waxay idinka sheekaynayaan gabadh gaalo ah waa gabadh madow oo soo muslimta markii hore gaalo ahay ayaa gabadhaas waxa iga yaabiyey gabadha anaaba soo muslimiyey waxa iga yaabiyey wax marka la soo muslim yani ana u qabtay shahaadada waxa iga yaabiyey gabadhani siday ninkeeda ula dhaqanto nin baan u guuriyey kaloo madow African American waxaan deganay markaa Maryland meenado oo Mareykanka ah ninkii markaa wuxuu igu yiraahdaa Saciid imaan buu dhahaa gabadhu waa cajiib gabadhu ilaahay noo barakay dumarka African American waxa lagu yaqaan dumarka madmadow ee soo muslimay Mareykanka degan inay taf yihiin oo ay adag yihiin oo taagan yihiin oo ninka halka hadii goor ay ka jiraan oo laga aawdo bileysto ninkana gabadhiisa wuu amaanaya waana aad buu ugu faraxsan yahay inantii baan u yeeray ii waran baan ku waxay tiri caynka ninka loola dhaqmo ninka caynka loola dhaqmo waxaan ka bartay hooyaday haye waxay tiri hooyaday waa hooyada gaala ayaa aabaheedoo gaala hooyaday bay tiri markuu aabahay yimaad intaanu imaanin bay annaka nasiib diyaarin jirtay way noo sii maydi jirtay looshi may nasiib marin jirtay way nasiib qurxin jirtay cadar bay noo sii marin jirtay annakoo diyaara oo aad moodin inaan daa aroos tagayno xaflad aan tagayno qurqurux badan oo naloo sii meeyo naloo sii subka aabahay yimaada markuu jeliska uu alba maftaxa ku dhufto ay tiraahdo shakora yaa waxay tiri marka aabahay hooyada halka tuwal baa u saaran aabahay kursi baa albaabka u dhigtay bay tiri kursigii bay ku fadhiisisa kabahay ka bixisa mariyihii uu xidhnaa sare ka bixisa tuwaalkina way siisa waxda musqusha galo soo meeyo alaabtiisii bay tiri marka musqusha ayay u taala markuu ka soo baxo uu musqusha ka soo baxo cuntadii oo diyaar ayuu u yimaada 2 saacadood ayuu asagu nasta ama u raaxaysta maruu cunto cunayo maruu hooyo la sheekaysto 2 saacadood ka bacdi baana la siiyay bay tiri idniga inaanu aabahay u soo degno markaasaanu soo degna saanu la ciyaara aanu dhudhunkana hadhowna saytaa orda daba seexda aabihin berto uu kala hayaa ixtiraamka marka ninka caynka loo ixtiraamo waxaan ka bartay hooyaday ka bacdina waxaan akhriyay sunnadii nabiga sallallahu alayhi wa sallam caynka ragga loola dhaqmo ayaan bartay waxa jira rag fara badan oo halkan aan maanta hadlaynin oo sida fiidmeerta guriga ka warwareega oo meelaha ma dhamo maqaxibu ka soo sheekaynaya halkan buu kalba halka mar buu hebel leeyo tagaya hebel baan meel geeyay buu oranay inta wuxuu sugaya inta tii ka seexanayso waqti ilaahayo tii bas on dheh wuxuu sugaya inta tii guriga ma sha Allah ka seexanayso waayo wuxuu ogyahay markuu jidh guriga soo galo in lagu bilaabayo maxaad qabat xagaad tagtay maxaad samaysay dagaal buu marka u diyaar yahay dagaal wallahi mid wuxuu igu yiri qaylan guriga marka albaabka sida u furo waxaad moodaa buu inay aniga isugayso markan albaabka sida u furo waa ay soo fatahada ayadoo qaylansan ka seexda buu yiri ayadoo qaylansan waa soo toosa saana buu tara habeen isku xaadhay qaylanaysa mise way nasatay